السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله meel walba joogtiin waan islaamayaa waa walaalkiina maskiinka ahaa shakuur cabdalla oo maanta video diyaarinaya waxay ugu dambeysay video aan sameeyo laga yaabo sanad aan u malaynayaa inta ugu badanayd ugu muhiimsanaydna waan sameeyey inta ka faa'iidaysatay alxamdulilah inta dhibanna waxaan dhihi lahaa meesha shakuur cabdalla youtube-ka ku jiro maxalla videoyaasha ilaa 40 wayna anfacayaan insha allah ka faa'iidaysta videoga maanta waxaan u sameynayaa jawaab celin laga keenay xalay spacekii xalay oo mtrade walaalkeena noo qabtay oo ayaantan aad moodid maasha allah inuu time siinayo communityga space u qabanayo dad badan soo xirigelinayo maxaa la dhahaa ii sheeg waqti badan gelinayo xalay meeshaasa waxaan ka sheegay some tips marka tibyadii aan ka sheegay meeshaasi dhowrka wiig aan research ku sameynayay mimkoniyada iyo sida loola tacaamulo sida laga bartay aniga badanaa exchangeada waaweyn baan joogaa iyo kooniyada waaweyn baan trade ku sameeyaa laakiin saddexdii wiig haddirtaan lasoo dhaafay waxaan galay halaho research iyo maxaa la dhahaa cilmi baaris aan ku doonayo inaan bal wax un aan ka fahmo decentralizeka inaan maxaa la dhahaa la jaan qaadi karo iyo in kale hal shay aan isku waafaqno aan isla raacno crypto waa community iyo narrative labadaas haddaan isla ogaano marka waxa waaye easy noqonaysaa qofka inuu flexible inuu noqdo ma fahamtay ma aha meel oo geed meel geed lagu dhaha meeshaan istaag ha ka dhaqaaqin no left no right ma aha meeshaan cryptocurrency crypto asaaskeeda waa community all the community meesha movekay sameeyaan waa inaa adi mar walba aad og tahay where's the move in where's the narrative in ma fahamtay marka haddirtaan 2024 ilaa haddirta suu u bilowday ilaa haddirtaan badanaa mimkoniyada baa maxaa waaye narrativekooda aad u weyn yahay lacagta badanaa meeshaasay jirtaa iyo dex iyo decentralizeyada maxaa la dhahaa exchange-yada marka sidaas darteed adiga waxaa ku qasban tahay inaad flexible noqotid waxaa ku qasban tahay inaad og tahay ama aad ka saysid saa ula tacaamulaysid maxaa la dhahaa narrativekan cusub iyo communitygii meesha u gooray fahamteen marka 4 qodobaan haddirtaan rabaa inaan xooga saaro waqtigan inuu dheeraado ma rabi 4 qodob mise 5 qodob waaye waxaan fiirinaynaa crypto waxaan isla ogolaanaynaa ama ku heshiinaynaa crypto inay community tahay first of things crypto waa community coin riixayo waaye ma fahamteen marka communitygaas haddii adiga part of them aad tahay oo early stage a ku jirtid you will win haddii communityga u ballaarado oo weynaado ma fahamtay marka mimcoinada maxaa u dheer mimcoinada because ma ahan wax meel oo xogta exchangegii iyo maxaa la dhahaa isheg stop losskii wixii aad ka helaysid ma arkaysid moogtahay iyo maxaa la dhahaa information updateyada oo developer ay sameynayaan waxaasoo dhan ma lahan because waa early stage bay ku jiraan early stagekooda keliya wuxuu ku saabsan yahay inay community dhisaan more community more maxaa la dhahaa koonkan la barto more lacag ay soo gasho after that markii waxaan u bilaarado u weynaado ee waxay isku bedelaan wax leh utility tusaale shiba inu koonkani inkastoo markii dambe uu xaraan noqday oo haddirtan soomaalida badana ay iska ilaaliso laakiin koonkaasi markuu soo baxay kow narrativekiisa wuxuu ahaa maxaa la dhahaa meme coin oo doge killer ah ma leh wax utility ma fahamteen marka coinkii markuu soo qarxay oo billions maxaa la dhahaa lacag lagu shubay oo market capkiisa aad u weynaaday wuxuu maxaa la dhahaa lacagtii faa'iidadii waxay ku sameeyeen wax utility ay ku sameeyeen oo swapping waxaas camal ah marka waa coin ku bilaabmay maxaa la dhahaa challenge kabacdina haddana isku bedelay maxaa la dhahaa wax utility leedahay oo dadka cryptocurrency ku jira ay isticmaalaan dhanka swapka iyo waxaas ma fahamtay marka crypto badana waxay ka bilaabataa waa community marka coinka communitygiisa hadduu weyn yahay that's good
waa fiican tahay haddii hadalhayntiisa coinkani oo maxaa la dhahaa early stage isagoo ah laakiin communitygiisa uu maxaa la dhahaa community active yahay community soo jiidanaya dadka waaweyn uu yahay number one waa community so how you found the community taas waaye how you found the community taasaan haddirtaan xooga saaraynaa waa usoo noqonaynaa wallet tracker iyo volume iyo market capka iyo targetka waxaasoo dhan usoo laabanaynaa how to found the community markii coinka uu qarxo oo qof walba ka hadlo oo qof walba ka hadlo then everyone knows laakiin aniga waxaan rabnaa waxaan early stage inuu yahay samaan marka waxaan research ku sameynaynaa kooniyadii qarxay tusaale ahaan meeshan waa dex scannerkii oo tradeka decentralizeka lagu sameeyo kooninkan maalin walba coin baa soo dhaco saacadiiba coinaa soo dhaco laakiin kooni old baa jiro oo qarxay oo lacag aad u badan soo gashay coin ka mid ah magaciisaan qaadaynaa waxaan geynaynaa twitterka waa raadinaynaa markuu qarxay intuu qarxin ka hor coinkani intuu qarxin oo lacag badan sameynin ka hor aan waxaan rabnaa inaan ogaano peoplekii ka hadli jiray coinkaas iyay ahaayeen people yani tusaale coinka maantuu qarxay 2 beri 3 beri ka hor 4 beri ka hor coinkaas yaa hadal haye qofkaas waa qof active ah qofkaas waxa waaye inaan isha ku hayo waxyaaluhu soo dhigayo waxyaaluhu soo sheergareynayo fahamteen taas waa one of community sa u helaysa community active ah sa u helaysa oo coinka early stageka maxaa la dhahaa sameeyo hadda waxaan raadinaynaa one coin because waqtiga ma rabi inaan maxaa la dhahaa magaciiseeyo coinaa rabaa inaan meeshan ka soo baxsado waa iga tusaale sooma coinaa soo qabsanaynaa inta wif market capkiisa waa 3.12 bilyan waaye market cap aad u weyn exchangegaa la keenay coinkan wif waa meme coin still hadda waqtigan la joogo ma laha wax utility ah waa only meme coin okay marka waxaa fiirinaysaa adiga coinkani intaan badan dhaqaaqan badan sameeyey early stagekii markuu ahaa waa december uu marka uu soo baxay markaan yaa ka hadli jiray markaan yaa soo sheergarayn jiray markaan yaa ka hadli jiray coinkan qofkii ka hadli jiray december waxaa ku siinaya twitterka magaciya wifa soo qaadaysaa twitterka gelis waxaa baaraysaa dadkii sheerka ku samayn jiray coinkani wif waagaas hadda ma aha because hadda qof walba tweet kusoo sameeya coinka soomaa marka targetkeenu wuxuu yahay december iyo january coinkani qofkii dadka sheergarayn jiray marka qofkaas ma yahay qofkaas naftigiisa ma jiraa projecti kale uu ka qayb gala uu sheergareeyey oo maxaa la hawada gala qofkaas targetka aan saarayna qofkaas waxa waaye inaan maxaa la dhahaa ii sheeg meelaha badana coinanka fiican laga helo oo qofkaas ka mid yahay had baaritaankaas ma geli karin because time uma hayay hadda okay how to find a good community and good an active person oo cryptocurrency ku jiro khaasatan coiniyada meme coin okay maxaan kaloo dhahnay waxaan aadaynaa wallet waxaan fiirinaynaa wallet tracker because markaad joogtid maxaa la dhahaa ii sheeg decentralizeka maxaa la dhahaa malaha wax la dhaho KYC ma fahamtay badanaa waa la isdhacaa ma ogtahay marka meel aad u khatar badan waaye laakiin maxaa la fiiriyaa la raadiyaa dadka maxaa la dhahaa lacagta haysto oo gamekan in muddo ku jiray ninkay gadanayaan ma fahamtay because mudday ku jiraan way og yihiin what maxaa la dhahaa good and what bad boqolkii waxaa iska dhigi kartaa adii 80 way la socdaan because meesha lacag badan ay ka sameeyeen mudday ku jiraan marka dadkaasaa waxaad aad tracker ku samaynaysaa maxaa la dhahaa aad dabagelaysaa waxyaalahay gadanayaan si ku helaysaa dadkaas waxaa ku helaysaa we go back to the dex scanner markaa aadid any coinyadan ka mid ah aan taabanaynaa
saan camal usoo baxaya inta market capkii wixii ku qoran korkan saan hadda u qaado waxaa ku qoran meeshaan ii sheeg meeshaan waxa waaye biirkii maxaa la dhahaa biir tracker maxaa la dhahaa ii sheeg coinkan magaciisa biirkiisa haddaa copy dhahdo waxaa geen kartaa solana chain laakiin kaama u socno waxaan u socnaa meeshaan hoose oo buy sell buy sell buy sell ah marka type wuxuu ku leeyahay buy waa sell wuxuu ku tusaya yaa gadanayo yaa iska gadaayo coinkan hadda qiimaha waa USD waa USD waa lacagtii dollarka qiimahana uu ku tusaya qiimihii meesha hadda uu joogo coinkani uu ku tusaya iyo waxa waay sol intay tahay one sol wuxuu ku gatay qofkan one sol gatay qofkan wuxuu gatay qof weyn jeebkiisa weyn yahay raadinaynaa coinkan inkastoo iska tacbaan yahay coin fiican aan qaadinaynaa coin fiican coinkan hadda maanta coinkan maanta cajiib u ahaa oo stock marketku la socday waa sheeko kale oo sheeko dheer wuxuu sameeyey wuxuuse 2,000 oo percentage uu sameeyey maanta waa ware 3,495 percentage one day meesha lacagaa taalo laakiin hadday kuu gasho waay calaa kulli xaal coinkan waxaan rabnaa inaan ogaano coinkani hadaaye ayaa gadanaya dadka gadanaya meeshan waa sell meeshan waa buy tana waa lacagtii dollarka tan waa qiimihii maxaa la dhahaa jimmy tana waa sol soo maha intana priceki waaye uu jimmy hadda marayo maker meeshaan maker shalana waa sheegay spaceka makerkan halkana taabanaysaa aa ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid wuxuu ku geenayaa waalidka jimmy gadanayo wuxuu ku geenayaa waalidka gudaha ninkan activitadkiisu ku geenaya marka waalidka waa kana magaciisa copia leeda meelaa dhiganaysa waalidka hadduu ku cajibiyo lacag badan ay ku jirto maxaa la dhahaa nin heavy yahay active yahay maanta dhan wax trade gareynayo say ku fahmaysaa inuu heavy yahay waa kana ninkan lacag badan oo kuma jirto 700 waa maxaa la dhahaa ii sheeg dhalinyarada sidayn camal aan lacagta badan haysanin 700 keliya haystaa intana sol wuxuu ku haystaa 3,000 ilaa 4,000 uu ku haystaa waalidkiisana ilaa waalidkiisa badanya lacagta ku jirta mise anaa umaleeyay maya total balance waxa waaye 700 waay orada kabacdi activitadka waxaa ku fahmaysaa transactionka ma ahan sol transfer ma ahan SPL transfer taabanayna SPL transfer meeshan haddaad taabatid tiga marabi inuu imaado ninkan oo jeebka yar oo 700 oo ku jirto 3 daqiiqo ka hor wuxuu gatay coinkan ship with hot waa 3 daqiiqo ka hor haddirtaan okay why ship asaga naftigeeda asaga aadaya copian le magaca ama waa ku dhufanaya ship wuxuu igeenayaa magaciisii sol chain wuxuu igeenayaa tokenkii markuu igeeyo waxaan soo qaadanayaa tokenkii maxaa la dhahaa tickerka tokenka waxaad arkaysaa meeshan 3 daqiiqo 4 daqiiqo 10 daqiiqo ka hor coinkan in la gadanayo ship okay waxaan ku soo noqday dex scannerkan ku soo noqday meeshaan research ku qoran tahay waxaan ku dhufanayaa waalidkii aan soo qaaday waalidkii inta uu iiga diiday laakiin magacii aan soo qaaday magacii magaca waxaa waaye ship with hot ship ha bilaawday allah bila wareer waa meeshaan maanta dhan wax lagu soo dejinayo okay ship waa kana bahalkan haddirtaan daqiiqado ka hor gadanayay ninkani aan dabagelayno chartigiisa waa kana saan u egyahay 5 maay 6 maayo wax yar dhaqaaq fiican sameeyey kabacdi haddana waa la soo daadiyey hadda sideways uu ku socdaa market capkiisa waxa waaye 2.5 waaye liquidityga lacagta ku jirtana waxa waaye 269,000 shanta daqiiqo waa lasoo dhaafay $15 15%
maya 0.15 uu minus yahay saacaddii hadda ugu dambeysay waa 0.25 lixdii saaca ugu dambeysay waa 0.79 labaatan afartii saaca ugu dambeysana waa 0. magaciisa 75 coinkan inkastoo marketkiisa uu fiican yahay laakiin waxa waayey maanta si fiican maxaa la dhahaa uma ciideysaninoo maanta dhan sel baa lagu hayay laakiin ninkii haddirtaan oo waalidkiisa fiirinaynay coinkan u gadanayay so coinkan markay aragtay coinsaan camal ah baalkan xataa waa isticmaali kartaa meesha hadduu dhaafo is good buy meesha hadduu ka dhex baxo meesha hadduu ka dhex baxo inkastoo badanaa oo volatilityga u badan yahay darteeda uu maxaa la dhahaa ii sheeg technicalkii meesha aad u adag yahay laakiin qof walba sida adiga u arkay sida aniga hadda u arkaayo ay ayakan u arkayaan marka qof walba waxaa laga yaabaa inuu meeshan bay dhaho markuu bahalkan intuu imaado in meeshan ay noqoto bayga la sugaayo intuu meeshan marayo qofna ma gadanayo markaas wuxuu ka cabsanaya qofkan inuu weli sii dhaadhaco ma ogtahay marka saas darteed marka waa tusaale ma aha coinkan inaa hadda gadatid laakiin waa tusaale okay coinkan saanaan ku helnay ninkii haddartaan aan raadinaynay wuxuu gadanayo waa aragtaan wuxuu gadanayo sooma marka saasaa loo raadiyaa wallet tracker dadka lacagta leh hadda kan lacag badan ma haystabo midka haddartaan arkaynay laakiin dad waxaa jira lacag fiican haysto walahi waa active jimmy u gatay 6 daqiiqo ka hor laakiin 6 daqiiqo ka hor uma malaynaya inuu ka faa'iidayo midkan mid wareersan waaye 4 saac ka hor jimmy maybe this guy is good 4 saac ka hor 4 saac ka hor jimmy oh 6 day ago jimmy ninkan waa faa'iiday 6 day ago oo jimmy gatay ninkan laakiin waxaan u malaynayaa inuu maanta haddana iska gaday kabacdi haddana uu gaday kabacdina uu mar kale iska gaday okay ninkan waa nin xariif waa lix beri ka hor hadduuba jimmy gatay because jimmy maanta wuu qarxay lacag badan uu sameeyey so midkan wuu iska gaday so saas darteeda laga yaaba inuu waalidkii tus weli wuxuu haystaa 22,000 oo jimmy u haystaa 22,000 oo jimmy u haystaa maanta inuu salgarayaa fiicneed calaa kulli xaal waa ka tegaynaa qofkan waa tusaale naga ahayd ma ahan qofkan focus garaynayno laakiin way badan yihiin dadka lacagta badan haysto marka waqtiga ugu batay maxaa kaloo aan rabnay maxaa kaloo aan isha ku haynay taa waa wallet trackerka soo fahmnay sooma valiumka haddaa waan ii sheegay valiumka degsiga u noqonayna valiumka intay ka arkaynaa valiumka waa kana valiumka muhiim waaye hadda fiiri kan valiumkiisa coinkan ship with hot valiumkiisa 51,000 waaye koonyadii maanta dhaqaaqa badan sameynaya sida jimmy valiumkiisa daarta waa yaabaysaa fiiri meeshan waa 89.6 malyan valiumkiisa marka valiumka saan u badan markaa aragtid macnaata waxa waaye lacag badanaa aad soo gelayso maxaa la dhahaa dad hore saaki hore soo galay oo hadda iska iibinaya iyo dad hadda ku baraarugay oo raba inay ku jamgarayaan baa jira ma fahamta fiiri hadda bayga fiiri meesha hadda aragtid still buy alele still buy sababta coinkan jimmy badanaa 3 beri 4 beri aa la bamgarayaa stock marketka wax arrin stock marketka ku saabsan marka saas darteeda cripta la keenay meesha hadda wixii waa isku xirmeen laakiin taa sheekadeena maanta ma ahan laakiin waxaan aadaynaa another things waxaan taa waa valiumki market capka waana tusay market capka hadda jimmy waa 62,000 marka market capka markuu yahay
midkaan camala fiirinaynaa waa 200 203 waaye kan camal laakiin aan wixiisa dhan wato kan fiir website keliya wataa ma lahan twitter ma lahan telegram marka laga yaabo kan markuu 500 gaaro inay maxaa la dhahaa chainka dhan ay xiraan oo ay damiyaan oo ay lacagta saas ku dhacaan ma fahamtay marka aan badanaa waxaan jeclahay kan 1 million markuu gaaro dhowr beri uu jiro hadda kan hal maalin waaye maanta keliya waaye kan waa 1 candle 1 day waaye market capkiisa wuxuu maraya 200 badanaa waa risk midkaan camal gaas ma ogid laakiin markuu dhowr beri bahalka koonka yaalo market capkiisana uu meel fiican intuu gaaro haddana soo noqdo haddana baxo aan maxaa la dhahaa albaabada loo xirin koonkaas camal waa lagu dhiiran karaa ma fahamteen marka market capkana waa muhiim inaad ogaagtid meeshuu yahay market capka hadday 1 million yahay hadduu 10 million kuu sameeyo mise 6 million kuu sameeyo markaas waxaa waaye profit fiican oo ku jirta targetka market capku la socdaa lama socdo priceka markii meme coin la joogo targetka lama socdo maxaa la dhahaa priceka wuxuu la socdaa badanaa wuxuu la socdaa oo focuska la saaraa market capka marka sida hadda sheegay market capka hadduu yahay 1 million dadaa waxay ishaartooda yahay 10 billion 20 billion 20 million 10 million 30 million way ka baxayaan lacagtooda ka qaadanayaan haddana laga yaaba gadaal inay ka soo galaan kuwana waxay sugaanba ilaa 1 billion 2 billion ma fahamtay way iska haystaan waxooda way aaminsan yihiin laga yaaba bahalkaas inuu yani tiimka adag yahay tiimka uu yahay tiim rabo bahalkan coinkan inuu exchange geeyo marka coin la rabo inuu exchange la geeyo waa coin badanaa gaarayo bilyankaas gaarayo si fudud ku gaarayo marka intaasaan kusoo koobayaa waalidyada sida loo gato kuwan waxa waaye baaritaankii wixii coinkii waa aragtay wixii dhan waa kugu anfacay kabacdi maxaa waaye waalidkaaga aadaysaa phantom waalidka phantom markaa aadid inta lacaga kuu jirto lacag solana kuu jirto see inta lacagta loogu soo diraa youtubekan haddaa aadid shakuur cabdallah waa kana decentralize waxaan dhan waxa waaye waalidyada sidii lacagta loogu soo diro from exchange to wallet ma fahantay inta ma jirto phantom wallet laakiin waxaa ku jiro trust wallet waxaa aan video ka sameynay waxaa ka sameynay video maxaa la dhahaa metamask wallet isku qaab waay wax dhan waa isku qaab ma fahamtid haddaa fahamtid kuwan meesha ku xusan phantom walletna waa fahmaysaa marka phantom hadda fiir metamask intuu ii saaran yahay phantomna waa kana phantom laptopkaaga waa kusoo degsan kartaa telefoonkaagana waa kusoo degsan kartaa kabacdi markaas inta waxaa samaynaysaa lacagtii usoo diraysaa lacag soole ah inta usoo diraysaa marka inta usoo dirtid lacagta inta ku imaato calaamadan oo maxaa la dhahaa sida web browserka ah aad taabanaysaa markaad taabatid jupiter oo ku dhisan chainka maxaa la dhahaa sol aad aadaysaa waa exchange wuxuu ku geenayaa meeshan lacagta swapka la kala bedelanayo marka waxaad gadanaysaa waa coin oo aad ka soo qaadatay meeshan tusaale ahaan coinkan haddartaan hoosaan usoo deganaynaa copy ah la dhahaa soo maha coinkan calaamadiisa waa kana saan u qabtay waa soo copy gareeye waxaan aadayaa swapkii jupiter intaan taabanayaa meeshaan kora waalidkii tikarkiisa ku qorayaa ku dhejinayaa kabacdi waxaa ii soo baxaya igadeeda maxaa dhahay may all haa fiiri meeshaan waxaa ku qoran waxyaalaha oo yani maxaa la dhahaa strict bahalo oo yani si fiican loo xaqiijiyo la fahmay kooninka strict bas loo kuu soo saaraya intana allaa leedahay because wax walba ma kuu soo saaraya allaa leedahay all markaad dhahdid wuxuu ku siinayaa
maxaa la dhahaa ii sheeg warring oo ku saabsan coinkan inuu coin ahayn legitimate oo aqoonsaneen Jupiter aqoonsaneen ma fahanti badanaa coinanka boqolaal boqol waa coin maanta maalin walba coin baa soo degaa marka ma aada ugu tahay inay coinanka dhan aqoonsadaan mas-uuliyadaas ay qaadaan darteeda waxay ku leeyihiin coinkan aniga ma aqoonsanay haddaa riski qaadanaysid adiga qaado adiga ku taala saas darteeda waa qaadanaysaa waa kana this token is not on the strict list. Make sure that mint address is correct before confirming. Okay, let that agree. Kan hoosu ku yaalaa soolkii lacagtii soolka inta kuu soo baxayso kabacdi waxa waaye soolkii aad magaysaa anii sool inta waalidkan lacagta iguma jirto kabacdi sool one sool ama 0 point ama 0.2 sool oo dhigmato $30 ama 0.1 sool oo dhigmato $15 intaan uu ku noqonaya kabacdi waxaa leedahay connect wallet waxa waaye saasuu kuu gadaya kabacdi walletkaaga meeshaan kaaga muuqanaya kooninkan meeshan ku jiro kooninka meeshaan uu soo gelaya koonka aad gadatay 7,000 oo 25 ah ku gadatay 25ka magaciisi waxaa ku imaanaya meeshaan ay ku imaanaysaa ma fahantay hadhowtii haddaa rabtid inaad iska gedidna sidiyaan samaynaysaa cinwaankii adresskii aad soo qaadanaysaa oo coinka meeshaana ka soo qaadanaysaa after that waxaad tegaysaa swapkii labadaana kala bedelaysaa sola hoos imaanayo kanaa kor aadayo kabacdi waxaa leedahay confirm maxaa la swap ama connect wallet hadda wuxuu leeyahay walletkaaga ku xir laakiin insha allah wax kolley wixii su-aal ah waxa waaye waan isla joognaa videoga aad u dheeraaday raali ahaada information ku saabsan sida waxaa la dhahaa ii sheeg walletka sida community loo helo sida wallet tracker loo sameeyo valuumka sida loo fahmo market capka iyo target inaad leedahay badanaa muhiim waaye target inaad leedahay meesha waxa waa iska gado iska jifa maaha waa meme coins karka lagu dira haddii la rabo marka mar walba targetkana uu yahay target macquul ah shukur camal ha noqonin marka target macquul ah aad ka dabaalan kartid insha allah waan islaamayaa wixii su-aalena waxa waa isla joogna insha allah spaceka mtrade oo habeen walba u furo waan islaamaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu